جيك فرها فترة إن الأرنا سوري واس دبعت أيضا كأسلوب تدولة قبلات وكفر قبتي سيد قالوا والكار يعني لما بقول قفنا كتير دبعت دبعت جيك إنكم بان جيك قابتوا إنتاجن الحمد لله إلهي بمرنا دي زيتي مدن وسير تليها أيضا كأسلوب الصوماليات وسير كجرسور دولة الصومالية تلي هيين كأيضا كأسلوب الصوماليات قدومي جرسور دولة قبلات كفر قلبي لما لك مسؤولية أسكليك أنتك سلام كدب أيضا كأسلوب ميلان قاب بدن لهالجمي تلي هر بشير قام من هاوس فعليا كديدالي إني قولكم لسه الوزارة ديكي تليها مدرسة تلي قيمة بوليسة هاي جيك إن تليها إذا كأسلوب الصومالية ذي فرها قار بهت هرتك ياكو قبل هردوا مرة ما هردوا تليها إذا أم حسنته هذه وسير كبد دلال كسن دلال هايتان لو كان إني قبل فقد أن نغن لبريجي هلا صورت هذه بندان كانوا لكرام لبعض دلالات إذا مدي أفرتكون إني دجان نفتي إيجارها كبهان ما هبيس لما ما هبيس هاي إني والكل إيجار إيجار ألعاب لانج جماعين إني أرون لني وذا لسه والبني كهرن هذا مرة ما هذا مرسيد هذا بسم الله الرحمن الرحيم ما بقيك magaalada Baydhabo hooyaha wasiirka cadaaladda dawladda federaalka taliyaha ciidamada asluubta Soomaaliyeed mudane Mahad Abdiraxmaan oo onkooyan iyo soo official furan nin la furan barnaamijkii oo xabsigii oo muddo sanooyin ah jiitmay geekmay ilaahay falashay in oo hanoo la qayb galaan marti sharaf oo qoyti wasaaradda maaliyadda federaalka iyo gudoomiyaha maxkamadda sare ee dawladda goboleedka koonfur galbeed dhagax dhigan meelaan hore la dhagax dhigay laakiin wayba muujiyaasay in oo si toos ah lama furi dhismageena bilaabado doona sidan ka dhaqso badan oo geeka lagu bilaabo dhismagii xabsiga bilaabado xabsigan xabsi weyn lagu faday oo koonfur galbeed dan adeegow intii uu qayb galay oo madaxda qaranka ku mid ah oo wasiirka cadaaladda dawladda federaalka iyo taliyaha asluubta Soomaaliyeed ciidan kama hasanyin intii kale oo yoona ku qayb galay dawlad goboleedka koonfur galbeed oo wasaaradda cadaaladda ka horjartay iyo taliyaha asluubta koonfur galbeedna yoona ciidan ma hasanyin mayba barnaamijkan daadiyaha wasaaradda maaliyadda oo dhaqaalaha marahay meena dhiso doona company Soomaaliyeed oo dabcan processkii rasmiga ah hamari oo marqaato lagu hayo wasaaradda oo shaqada kala hay dhan oo la wadeen may rajeena ilaahay ku rajeena in oo xabsigan u siyoonin dhamaada wanagada kii oo la ka xakameeyay dambiilayaasha Soomaaliyeed gaar ahaan dadka ka dhaqan dawlad deegaanka oo dawlad goboleedka koonfur galbeed garsoorka federaalka wasiirka garsoorka goboleedka koonfur galbeed taliyaha asluubta iyo gudoomiyaha maxkamadda kulli madaxda kale halkan joogto waa idin salaamay aniga kulli waxa si la sheegay waxaan ka socdaa wasaaradda maaliyadda mashruucan waxay ahayd waa isla wadnay aniga iyo wasaaradda garsoorka iyo labada maamul dawladda federaalka iyo muxuu ahay dawladda goboleedka iyo taliyaha waa isla wadnay runtii maalinta halkan imaanayni xoogaa waqtiga ay nagu qaadatay in ma arti la diyaariyo mashruucan la diyaariyo laakiin waxay u iska heeday ma arti farsamo maadaama anagina nafdayna aan nahay saddex qayb aan nahay dawladda ahaan qayb muxuu UN ko lacagta bixinaysan ay joogaan oo muxuu arrintaas ay rabaan inay wax ka ogaadaan xoogaa waqtiga naga qaadatay marka taas waxa waa iska process caadi ah oo aan wax ku saxaynay maraysa marka mashruucan runtii waa muhiimad gaar ah oo noo leeyahay waa sida wasiirka uu sheegay waxaan rabaa in ma arti lagu xalliyo waxyaabaha mushkilaadka oo muxuu ahay dambiilaadka lagu xalliyo rabaa marka waa fayskii koowaad waa kan hadda waxaan bilaabayna maanta dhagax dhigna waa fayskii koowaad waxaa lacagta bixiyay oo deeqdan bixiyay oo dawladda u soo marsiiyay UN ku soo marsiiyay waxa waa hay'ad Sweden government u soo marsiisay halkan waxay ku talagalsan yihiin in muxuu ahay fayska labaad hadii ilaahay yiraahdo kan uu si fiican loogu hirgalo inay fayska labaadna lagala hadlo ay muxuu ahay ay mudan yihiin waa la socdaan maanta in la dhagax dhigay halkan waa la socdaan oo bilaabanaya mashruuca waa la socdaan marka waxaan rajaynayaa كمبنيان هالكن كوجوليستي وزيرده والله صعدان فانت سفعنا ولا وضع قيب قلن ترتن وقلي إلى 16 كمبني أو ترتنتي qofkii ugu haboonay oo muxuu hawshan qaban karay markii loo fariyo farsamahan iyo dhaqaalahan markii loo fariyo ayaan qaadanay waxaan rajaynayaa qorshaha u dhigan waxa waaye 9 bilood waaye
laakiin waxay noo ballan qaadeen inay ka hore ay dhammaystiri karaan hadduu ilaah yidhaahdo marka annagana waa la soconaynaa halkaan UN-ka waxay keensanayeen muxuu ahay qof injineer oo la socdo daily muxuu ahay shaqadiisa u socoto la socdo annaga waxaa jooga kormeer oo asna nin kale injineer ah wasiirkiina oo muxuu ahay iska lahaa hawshan iyo taliyihii halkaan ayba joogaan ayagana oo waa la soconayeen marka annaga waxaan idin ballanqaadaynaa haddaana wasaaradda maaliyadda in muxuu ahay lacagtaas loogu talagalay halkaan si fiican ay u gasho in muxuu ahay ay noqonin wax farsamo qaab daran in lagu sameeyo ay noqonin wax macno aan lahayn aynu ku soo bixin waxaan wax ku bixinaa annaga waxa waaye lacagtaasi markii oo la caddeeyo hawshii loogu talagalay inta la qabtay loogu caddeeyo kadib aa lacagta la bixiyaa ma lacag loo hormarinaa ma jirto marka annaga hadduu ilaah taasaan xaqiijinaynaa injineerada waa la socdaan UN-ka waxay qabaan wax la yiraahdo monitoring agent ay qabaan ay raftoodana si annagana si kormeerayo marka waxaan rajaynayaa in si fiican ku dhamaan doonto idinkana waxaan idinka rajaynayaa mas'uuliyiinta muxuu ahay garsoorka iyo asluubtaba wada shaqayn fiican muxuu ahay aad siisiin kamaniga meesha ka wada nabadgelyada waa iska xunta waa la qiyaasi karaa iyo maamulo kale iska soo bixi karo marka in si fiican loola shaqeyn rajaynaa hadduu ilaah yiraahdo waxaan ka cudur daarnaa wasiir ku-xigeenkii waxaan soo raaci lahay maaliyadan soo raaci lahay laakiin xoogaa yaroo xaajisay marka insha Allah furitaanka inaan wax badan ka soo qayb galnaa rajaynaa hadduu ilaah yiraahdo mas-uuliyiinta meeshaan isugu timid hadday tahay heer federaal iyo heer maamul goboleedba waxaanu ku salaamaynaa nin walba darajada iyo mas-uuliyadda uu dalka u hayo oo halkaan uu hadda ku taagan yahay taasaan ku salaamaynaa waxaa kaloon salaamaynaa dhallinyaradana soo dhoweysay oo ciidamada iyo warbaahinta iyo xaafadaha u badan oo jecel horumarka iyo in horay loo socdo oo ma garanaysa dalka uu horay u socdo gaar ahaan koonfur galbeed inay horay u dhaqaaqdo jecelna waa salaamaynaa waxaa kaloon salaamaynaa garsoorkii koonfur galbeed Soomaaliya oo maxkamadeeda sare gudoomiyihii uu taagan yahay iyo wasiirkeeda cadaaladda iyo dhammaan waa salaamaynaa salaan ka bacdi waxaa la yidhi dad waxaad og tahay wax walba waa macna tilmaan ma rabaan meeshaan muddaan haynay subax baan ka qaadnay 3 sanana ku dhawaada ka soo wareegtay dad baa deganaa oo markaas sheeganayay cid kastaba hasiisa waxaan uga qaadnay danta guud ay ahayd tan maanta aan taagannahay way tan aan hadda taaganna yaa naga qaadnay tiina maanta alxamdulillah waxaa la taagan yahay bilowgeedii iyo dhismaheedii inuu bilowday oo ciddii gacan ugu siisay iyo waxoo dhanba iyo wasaaradihii kulli inay taagan yihiin waa la idiin sheegay meelaha kale ay wax soo marayaan waxa dhimanna waxaa ka hadli doona wasiirka asigaa faahfaahin doona aniga maxaan u gudbaa marka koonfur galbeed aniga midaa idiin sheegaa dhallinyaro meeshaan hadda aan taagannahay maanta waa dhisnaan lahayd mar horay dhisnaan lahayd oo maxay ahayd lagu shaqaysan lahaa ee maanta lama taagnaadeen waa u malaynayaa 6 sano 7 sano ka hor 8 sano ku dhawaad yaa xabsigan in loo dhiso UN-ka iyo deeq-bixiyaasha waxay ku talagaleen baydhabo inay xabsigan ka dhisaan waxaa eriyey maamul markaas ka jiray heer gobol iyo heer degmo ah oo baydhabo ka jira eriyey iyaga oo ku xiray contribution dhaqaale in la siiyo xabsigaa waa naga guuray isla markii waxaa laga dhisay garow ninkii arka aad u ogaada warkaan hadda maanta dhiisigaas oo ahaa iyo gobertoorahaas ma dhahay kolba waa na maqli doonaan way is ogyihiin 20kii ma wadaa la dhahaa taariikhay balaad waxaan idiin sheegayaa maantay soo noqotay oo taaganta wax lagu rafaadaba muddo badan lagu rafaado maantay soo noqotay meeshaan ammaankeeda ilaahay baa laga rabaa ammaankeeda dhalinyaro ciidamada adinka la inka rabaa xabsigan hadduu dhismo baydhabo barwaaqadeeda waay wax badan baa ku soo kordhay macni adinka la inka rabaa ammaankeeda yaa waay koow amiin adiga laga rabaa malihidin CID malihidin turbataariyo malihidin saldhiga malihidin laan hebel kulligiin meeshaan ina waardiyeysaan ilaa darbigu cirka taga oo dhismo si aan wali aadan dhismaheeda arkina loo dhisi doona ilaa la gaaro 4 koona ka taagnaanaysa wax badan bay faa'iido ay keeni doontaa faa'iidadaas aad guran doontaa ninkii horay u lahaa oo maalintii aan ka erinay oo sheeganay cid siisay oo dawlad ah ma jirin qof shacib intay u tageen ay lacag u geeyeen dheen kaalay meeshaan si kii ha u doonteen
annaga maalintii hadalkaan ku nidhi saasuu ahaa kii u doonta waad ogayd halkaas meera waxaad dadku garaacaysa annayn intaan taagna soo maa kii ha u doonta beesadiisa ninkii inta soo istaago oo waxaas sheegto waa nin qarannimada ka hor yimid iyo dawladnimada ka hor yimid sharcigana waa hal la waafajiyey maxkamaddii xukumi lahaydna waaba tana waa taaganta meeshaan ku mitida ha lagu mitido habeenay maalin u taagnaada amnigeeda lay suga adinka lacag leenkama raba dhisa laydinma le waxaas keena laydinma le haddaday u taalla fays koowaad ha dhiseena fays labaad ha dhiseena derbigan koow in la wareejiyaa la isku ogi ka bacdina fayska koowaad ay ka dhex dhisaan kan labaad la raadiyo lagu daro kan saddexaad lagu daro xamarba saasaa la yeeli waayo waa la wadaa meel dhammaatay ma jirto 5 sano 6 sano 7 sano dhismahan socon doona waa fahamteena u malayna in laga faa'iidaystaa la rabaa ninkii inta soo istaago ninkii shaqaalanimo iyo xamaal iyo u yimaado ha lagu tixgeliyey kambaniga u sheega muruqmaadaa la dhahaa dhagaxa qaad ciidan ha qaad ha shaqaysta shilinkii la sii ciddiisa ha ula hoysta dadkii ayagaa inta degana intaasaa lagu tixgelin karaa dhaqaale ayaga ha galeen shaqaalaha ka noqdeen ayagoon murmaynin dood qabin yaa hadday dood qabaan hadday xisaab kala waay indhaha fagsiiya indhaha fiigsi qolo walba ayadaa la rabaa meesheeda inay amnigeeda sugto wabilaahi tawfiiq sallallahu alayhi wasallam marka hore waxaa salaama wasiirka wasaaradda cadaaladda federaalka iyo wasiirka maamulka iyo taliyaha asluubta koonfur galbeed iyo wafdiga ka socda wasaaradda maaliyadda iyo taliya ku-xigeenka asluubta dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu run ahaantii aad iyo aad farxad ay noo tahay maanta xabsigan ka warqabtaan soo taliyaha muddaa la sugaya bishii 11aad ahayd qorshaha inay bilaabato sanadkii hore markii ugu dambeysay wafdigii wasaaradda maaliyadda iyo wasiirka imaanaysa qorshaha saas u ahay dib u dhacayso taliyihii sheegay marka halaas oo waxaa aaminsanahay in la rabo un kaliya wax sugan in meeshaan la keeno maantana way muuqataa xabsigii in la dhammaystiri doono insha allahu tacaala run ahaantii arrintan muhiimay u tahay sababtoo hadda meesha lagu shaqeeyo meel aad cariir u ah maalin walba magaaladan dembigeedii dhibkeedu waa badan yahay dadkii qofkii la soo qabtay laftirkiisu wuxuu baahan yahay meel uu ku nafiso oo lafaantiisa oo ku waana qaadan doono laakiin qol yar haddii la geliyo qofkii inuu ku waana qaato way adkaanaysaa qofki markii meeshaan la keeno nafis ay tahay oo waqti qaatay laftirkiisa maskaxdiisa iyo jismigiisa caafimaadkiisa inuu helo inuu ku waana qaato markii ugu dambaysa oo ka baxayaan asoo mahadcelinayo oo leeyahay alla ilaahay waa soo faa'iiday inuu u baahan tahay saa ka warqabtaan xabsigii dhexe xamar ku yaal maxaabiist waa shaqaystaan meel ku shaqaystaan waxay samaystaan wax soo saar leeyihiin laakiin anagu kuween maanta wax soo saar ma leh laakiin diyaar u yihiin wax qabtaan diyaar u yihiin lagu shaqeeyo diyaar u yihiin dhaqaaqan laakiin se bis masaafada ay ku shaqeeyaan masaafo cariiri ah marka maanta waan ku faraxsanahay run ahaantii waan idinkaga mahadcelin ka soo shaqeeyo run ahaantii abaal idinkaga haynaa daana koonfur galbeed insha Allah taala xabsiga inuu noqdo kii koonfur galbeed ku degsan doonto oo meel waliba oo laga keeno qofkii uu ku degsan inuu noqdo rajayna insha Allah taala waa idinkaga mahadcelin mar labaad mar saddexaad waa maasantihiin wasiirka ku soo dhawaad wafdiga ka socda wasaaradda maaliyadda wasiirka cadaaladda koonfur galbeed gudoomiyaha maxkamadda sare koonfur galbeed iyo dhammaan dadka ka soo qayb galay in la daahfuro dhismaha xabsigan weyn oo insha Allah ku ooli doono magaaladan Baydhabo run ahaantii himilooyinka madaxda qaranka ay lahaayeen iyo waajibaadka wasaaradda cadaaladda dawladda federaalka inay dhisto xabsiyo waaweyn dawlad goboleedyada dhammaantooda waa himilooyin oo aan ku guda jirno habeenii maalinba aan ka shaqayno waxa ilaahay mahadiis ah in anagoo kaashinayn wasaaradda maaliyadda iyo taliyaha asluubta iyo wasaaradda cadaaladda koonfur galbeed noo hirgalay inaan helno dhaqaalihii lagu dhisi lahaa xabsigan baaxadiis waa u jeedaan waa xabsi aad iyo aad u weyn waxaan u mahadcelinaynaa dawlooyinkii iyo international community-gi oo ayagana dhaqaalaha ku bixiyey anagoo waliba u sheegnay in la helo xabsi weyn marxaladda hadda lagu jiro dawlad goboleedyada dhan in laga helo inay arrin aad iyo aad muhiim u tahay waxayna qayb ka tahay dib u dhiska dalka
burburkii kadib dhibaatooyin badan baa dalkii gaaray goobooyin kalena waa la dhisahayaa laakiin xabsi markii la yidhaahdo wasaaradaha cadaaladda heer federaali heer dowlad goboleed iyo taliska mas-uuliyadaas iska lahaa alxamdulilah hadda xabsigan mar hore dhaqaalihiis la helay waxaana ku dadaalaynaa arrimihii farsamo in la dhammaystiro oo ugu dambeeyey tartankii ay galeen kambaniyadii Soomaaliyeed oo rabay inay qandaraasadan qaataan ayadoo ahayd tartankaas tartan daahfuran oo qiibihii ku shaqo lahaa ka qayb galeen oona ku soo baxay kambanigan hadda oo dhisi doono xabsigan faa'iidadu u yeelanay baydhabo horaa loo sheegay markii ugu horeysay wuxuu noqonayaa xabsiyada ugu weyn oo dalku noqonaya feeska koowaad hadda lagu bilaabi doona feeska labaad ayaa ku jiri doona waxaana rajaynaynaa haddana inaan dhaqaale u raadino maxkamadaha qayb ka mid ah heer ilaalintii oo xabsigan ayagana qayb ka degi lahayd naftooda inaan dhaqaale u raadino marka waa mashruuc aad u ballaaran aan rabno waqti badan inuu socon doono haddana dhaqso feeska ugu horeeyay in la dhiso faa'iidada kale uu keeni karo dadkaas maxaabiistaas oo hadda taliyaha oo halkan noo sheegay baydhabo oo ay meesha lagu hayo aad u yar tahay waxaan heli doonaa xabsi aad u weyn maxaabiista xuquuqdii loo baahnaa oo caalamiga ahayd inay helaan ay ku jirto tababaro ay ku jirto tacliim manaahij in la baro in farsamo la baro in maaragtay ka qayb qaataan dib u dhiska dalka warshadihii iyo arrimihii lagu yaqaanay maxaabiista inay shaqadaas halkan ku qabtaan kadibna markay ka soo baxaan xabsiga ay bulshada dib ugu noqdaanoo oo aqoontooda ay ku shaqaystaan taas hadafka weyn oo aan ka leenahay xabsigan in la dhisi way hadafka labaad oo hadda degdega ah waad la socotaan shaqo la'aanta oo dhulka ka jirto meel kasta Soomaaliya waad u jeedaan xabsigan baaxadiisu meeshay la eg tahay waxa way shaqo abuur baa meeshii ka dhalan doonta sidii hadda taliyaha sheegayay kuwa dhagax jibinaya kuwa ciida xaaqayo kuwa geedaha gurayo taban waxay ka imaanayaan dadka oo meeshan degan waxa way marka dhaqaale fiican baa soo galaya magaaladii khaas ahaan dadka jiiraanka la ah marka sidii taliyaha sheegay way waxa loo baahan yahay marka ammaanka goobta in aad iyo aad loogu dadaalo waxaan la dhisanayana shacab iyo xukuumadba in loo qaato waxa danta guud loo dhisayo inay tahay oo lagu dadaalo dhismihii xabsigan sida ugu dhaqso badan iyo ammaankiisa in lagu dadaalo insha Allah anagoo kaashanayna wasaaradda maaliyadda iyo cidi kale oo maaragtay ayadana waxa ka qaban karto inaan dhaqaalihii lagu ballaarin lahaa lagu dhisi lahaa xabsigan aan ku dadaalno xukuumad ahaan anagoo mathalayna wasaaradda cadaaladda waxa u hirgalay waxyaabaha himilooyinka xabsigan waxaa kale hadda nooga soo xiigo hadda wiiga soo socda inaan dhagax dhigno sidaan oo kale u baahannahay xabsi weyn kan la mid ah oo gaalkacyo laga dhisi doono qaybta galmudug waxaa kale nooga soo xiigi doona xabsi kan la mid ah in Kismaayo ayadana laga dhiso oo dhaqaalihii qayb ka mid ah lahayo garowe waad ogsoontihiin xabsi weyn oo ka dhisan Soomaaliland uu ka dhisan yahay waxaa noo haray Hirshabeelle oo anagana hadda dadaal weyn ugu jirno in xabsigaas asagana la dhiso marka haddii dawlad goboleedyadii dhan ay noo hirgasho xabsiyaal waaweyn kuwan oo kala waxay khafiifinaysaa dadka maxaabiista in meel fiican loo helo tababarna loo helo xuquuqdoodana la ilaaliyo marka himilooyinka aan leenahay dawlad ahaan runtii waan u mahadcelinayaa cid alla ciddii ka qayb qaadatay waxa ugu horeeyay markii hore intii imaaday ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynihii dawladda koonfur galbeed oo markaas aan la socday oo aan dhagax dhignay iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka oo asagana himilooyinkaas ku bixiyay in
la dhiso xabsiyada dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan cid kastoo cid ka qayb qaadatay waa u mahadcelinaynaa waa khaas ahaan waxaan u mahadcelinaynaa dawladda Sweden oo hadda la sheegay barnaamijkan inay qayb weyn ay ka ahayd haddana ay u taagan tahay waxyaabo badan Soomaaliya ay u qabatay iyo deeq-bixiyaasha kale ayagana qayb ka ahaa kulli waan u mahadcelinaynaa khaas ahaan haddii kulli barnaamijkii kor aan ka soo wadnay federaalkii waxaan ku soo wareejinay dawlad goboleedkii taliyaha habsigii oo baydhabo wuu joogaa wasiirkii cadaaladda koonfur galbeed wuu joogaa gudoomiyihii wuu joogaa taliyihii booliska way joogaan kulligood marka waajibkii in idinka idinku soo wareejinay anigu wixii dhaqaale loo baahdo hadhowdi farsamo heer federaal diyaar baan u nahay laakiin goobtan marka waa goob danta guud kulligiina waajib baa idinka saaran bahda garsoorka dhan iyo bahda amniga dhan waxa ka saaran waajib khaas ah ka saaran waxa la rabaa waajibkaas inaad gudataan anigana waa idin garab taaganahay meel kasto aan joogno waan dadaalaynaa insha Allah taliya ma sha Allah aad buu dadaalaya isagana si khaas ah ugu mahadcelinayaa marka guul baan rajaynaynaa hadii dalkeena waxa uu banaanka ka imaaday kali in lagu dhismeehe waxa way aniga nafteena dhisan karnaa ishalqaankii naftiisa waxa lagu dhisay laxdan guuridii hadda aan soo dhaafnay waad aragteen dalka meel kasta in aad iyo aad waxa looga qabtay ayadoo waliba coronavirus-ka aad noo xakameeyay marka himilooyinkaas waa jiraan dalka in la dhiso ishalqaan aad waliba aad u haysato dhaqaale wax weyn baad ku qaban kartaa marka cibaadaha loo qaato wax danta guud loo qabanayo marka hana la dadaalo insha Allah